بسم الله الرحمن الرحيم داوديال taariikhda caawa 14 bishii 3 2023 waa habeen talaada oo arbaca soo gelisay kulantan wacan meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan qodobada wararka caalamka ee dul istaagin doona caawa aan ugu hayna waxa kamid ah madaxweynaha dowladda Ruushka oo maanta boqosho lama filaan ku tagay warshada hubka soo saartay qalabka militariga qaybaha kala duwan ee loo yaqaan magaceeda marka la soo gaabiyo ulan ude asagoo halka dul istaagay sababta uu ugu duulay dalka Ukraine iyo waxyaalaha keenay sidoo kale qodobada wararka caawanahayna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore dalka Pakistan oo maxkamadda dalka ugu sarreysa Pakistan ee u jadhay waaran in lagu soo xiro halkaas ay sunta dalka ka yimaysay ku ridaan gurigiisa markay shacab gadoosan isku gadaameen halkuu deganaa ra'iisul wasaarihii hore dalkaas Imran Khan qodobada wararka caawa kale oo aanu hayna daawada waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya iyo Iran labada dal oo walaalaha dariska ah ayaa ka sii ambaqaaday heshiiskii dhawaan Jeeneysku oo dhex dhigay ayagoo maanta mar kale kulmay kana wada hadlay arrimaha amniga iyo sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka saliidaha iyo loo suuq geyn lahaa arrinkaas oo ka caarisay dowladda Mareykanka sidoo kale qodobada wararka nugana waxaa ka mid ah rag argagixisada oo lagu qabtay gudaha dalka Ruushka dalka Poland oo mudaharad weyn ka socdo lagana soo horjeedo dowladda Poland taageerayso ururka NATO iyo Ukraine shacab aad u fara badan halkaas ku soo baxay hubka cusub ee dowladda Ruushka ee wiigi la soo dhaafay iyo toddobaadkan gudihiisa ay ku soo biirisay dagaalka daawadayaal maxaa kala socota ee mucjisada ah dowladaha reer galbeedka iyo khibrada militariga ay arrinkaas aad uga fajaceen warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa maanta booqasho lama filaan ku tagay warshada hubka soo saartay ulan ude halkaas oo 36 daqiiqo muddo ku dhow nus saac uu ka khudbeynayay ulana hadlayay shaqaalaha ayaa dul istaagay muhiimadda leedahay inuu faahfaahiyo dagaalka Ukraine lagu qaaday maxay noogu fadhidaa oo qiimaa wuxuu yiri madaxweynuhu waxaan u dagaalamaynaa dadkayaga ku nool dhulalkaas ma ahan oo kaliya xaalad juqraafiyeed waa xaalad jirta madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka sheegay hadalkan iska horimaadka Ruushka iyo Ukraine mar uu kula yeeshay shaqaalaha warshada duulista ee ulan ude daawadayaal madaxweyne Putin maanta markuu booqashada ku tagay warshadan hubka qaybahooda kala duwan soo saarta wuxuu yiri dadkayaga ku nool afarta gobol ee Ukraine shacabka marnaba sida uga tagmayno waxaana ka mid yihiin dhulweynaha dalka Ruushka sidoo kale dowladda Ruushka maanta waxay qabatay nin argagixisa oo si ay hadalku u dhigeen ciidamada ammaanka ee dowladda Ruushka waxay yiraahdeen ninkan wuxuu shaqeynayay sirdoonka Ukrainiinta baasaboorro kala duwan iyo lacag fara badan baa lagu qabtay macluumaad buu siinayay wuxuuna diyaarinayay qaraxyo inuu halkaa ka geysto iyo macluumaad kale goobaha militariga degan si loo duqeeyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan oo taageero weyn ka haysta dalka Pakistan shacabkooda ayaa maaragtay maanta toole maxkamaddu waxay u soo jartay waaran lagu soo xiray saakay laakiin arrinkaas waxaa ka diiday shacab isku gadooday guriga deganaa magaalada Lahore oo maaragtay aad u soo banaan baxay oo kumanaan gaarayay arrinkaas oo booliisku markii dambe ay sunta ilmaha indhaha ka ilmaysiisay u adeegsadeen daawadayaal Imran Khan waa nin aad looga taageero dalka Pakistan oo sumcad ku leh diidan fikirka reer galbeedka iyo sihanooniyadda sidaa daraaddeedna shacbiyada xooggan haysta doorasho ayaa soo socotay dhowaan waxaan rajaynayaa xisbigiisa inuu ku guuleysto mar labaadna uu awoodda ku soo noqdo daawadayaal halkaa nagala socotaan waa barta YouTube-ka iyo TikTok-ka ku leenahay ee Calas 24 Post had iyo jeer waxaan iisoo gudbinaa warar ku saleysan xaqiiqda daawadayaal heshiiskii dowladda China ee ka soo shaqeysay dhowaan ee ka fajiciyay dowladaha reer galbeedka oo isku dirin jiray Iran iyo Sacuudiga ayaa markii heshiis dhex dhigtay waxaa madaxa qabsaday dowladda Mareykanka iyo Israa'iil iyo reer galbeedkii ma ay dooneen in Sacuudiga iyo Iran oo daris ah
marna waxa weeye ka dhaxayso mabhadda laba madhabadood macnaha dadka muslimiinta ay kala haystaan ee sunniyiinta iyo shiicada waa labada dowladood oo hogaaminta haysta sunniga iyo shiicada waxaana isku dirin jiray oo kala fogeyn jiray dowladaha reer galbeedka. Maanta toole waxay yeesheen shirkii hadda oo sii socda hadda wadahadaladoodii ayay ku yeesheen magaalada Tehraan ee dalka Iran. Waxaa la isku arki doonaa Britool dalka Sacuudiga. Waxaa laga wada hadlay arrimaha amniga, dhaqaalaha, shidaalka, waxyaalo fara badan. Labada dal waa laba dal oo taariikh fog leh oo maaragtay muslimiin ah, laakiin siyaasadooda waxaa kala fogeeyey dowladaha reer galbeedka. Waa laba dowladood oo shidaalka qani ku ah oo haddana cadow la iskaga dhigay. Labadan dowladood waxay kala hogaamiyaan qowmiyadaha sunniga iyo shiicada. Aad bayna muhiim ugu tahay dunida islaamka inay heshiiyaan. Waxaa la sheegayaa oo khibradu leedahay dagaalka Yemen ka socda waxaa istaagi doonaa jamhadahan iyo waxaan Sacuudiga lagu soo kiciyey diyaaradahan droonka. Sidoo kale cilaaqaadkooda wuxuu xumaaday markii la dilay wadaadkii weynaa ee shiicada ahaa ee lagu daldalay 2018kii dalka Sacuudi Carabiya ee kacdoonka hogaaminayay. Sidoo kale daawadayaal labada dowladood heshiiskooda dowladda Mareykanka madaxay ka qabsatay. Waxa weeye arrinkaasna may soo dhoweyn. Dowladda Russia afhayeen ku hadlay maanta criminalka wuxuu sheegay inay heshiiska labada dowladood ee Sacuudi Carabiya iyo Iran ee Chineska hormuud ku hayeen inay aad u soo dhoweynayaan. Dowlado badan oo caalamka ayaa u taangeeyey. Senataro badan oo Mareykankana waxay dhaheen siyaasadda Mareykanka waa laga tegey intii Biden xafiiska yimid. Daawadayaal arrinka Sacuudi Carabiya iyo Iran warkooda oo faahfaahsan mar kale ayaan dul istaagi doonaa haddii eebbe idmo. waana mahadsantihiin daawashada aana daawanaysaan la socodka la socotaan barnaamijka share gareeya asxaabtiinana la wadaaga like-na saara iyo subscribe. Sidoo kale waxaad la socotaan daawadayaal dagaalka Ukraine ka socda oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine inay ku lug leeyihiin dowlado waaweyn sida NATO ay ka mid yihiin. Sidoo kale dowladda Poland shacabkeeda ayaa maanta isku soo bannaan baxay oo calaamo boorar wata oo yiri ma doonayna dowladeeda iyo canshuurta naga qaadid iyo wiilasheeda iyo hubkeega iyo dhaqaalahayga inaad ku taageertid Ukraine ama si qarsoodi ama si loo jeedaba. Waxaan diyaar u nahay oo aan doonaynaa dagaalkaas inaad joojisaan taageerada aad u muujinaysaan Ukraine iyo hubka ay kusoo daabulayso NATO dhulkayaga. Ma doonayna inaan Russia anagoo daris nala ah aan dagaal la galno. Calaamada wataan waxaa ku qornaa naasi. Waxay leeyihiin naasiyiintii ayaa Ukraine lagu soo abuuraya. Shalay toole markayna qabsadeen naasiyiintu oo Poland qabsadeen waxaa naga kiciyey oo noo soo gurmaday dalka Russia. Maanta ayaa naasiyiintii iyo Jarmalkii dabada ku wadataan oo aad doonaysaan inaad mar kale nagu soo nooleysaan. Shacabkii dalka Poland oo maaragtay boorar iyo calaamo wata ayaa isku soo baxay. Daawadayaal dowladda Russia waxay soo bandhigtay hub aad uga fajiciyey ama uga yaabiyey dowladihii reer galbeedka. Qorigan waxaa la yiraahdaa magaciisa waxaa la yiraahdaa MDB. waa qori koley anu hore uma arag laakiin MDB-gan aad u dheereeyaa. Ninka kabtanka wadaha ka mar wareysi laga qaaday maantay wuxuu sheegay in gaarigan uu dheereeyo baabuurta khafiifka oo kale la mid yahay, cadowgan uu meel walba ku beegsado. Sidoo kale miinooyinka dhulka ku jira aysan waxba ka qaadan karin oo meeshooda ku qarxinayo. Waa qori aad u casri ah. Waxaa la yidhahdaa magaciisa MDB. Marka wuxuu yidhi ninka kabtanka ka ah qorigan aad baa maaragtay intuu dagaalka uu soo galay wiigii hore ayaa dagaalku soo galay buu yidhi. Wiig ayaan hadda ku shaqaynaynaa magaalada Bakhmut iyo gobolka Donbass ayaan kasoo galnay dagaalka. Cadowgana waan jabinay, waan bushgaraynay, baabuur badan baan ka gubnay, hub badan baan ka gubnay, askar badan ayaa ka leynay ayuu leeyahay kabtanka wadaa. Sidoo kale kabtanka wuxuu dul istaagay gaarigan inuu maaragtay diesel yar cuno, shidaal yar maaragtay aadna uu u dheereeyo. Wuxuu kaloo sheegay hubkii dowladda Mareykanka oo ay ballan qaadeen dowladaha reer galbeedku inay dagaalka soo galeen wiigii hore. Sidaa daraaddeed ayaa anaguna usoo galnay hubka midna waa gubnay ayuu leeyahay. Daawadayaal arrinka kale oo cajiibka oo saxaafadda reer galbeedka iyo khubarada ka faaloota arrimaha militariga oo aadka ula yaabeen waa taangiga casriga ah oo ilaa iyo wiigii hore dhammaadkiisii iyo wiigan hadda socda almost 10 beri gudahood bishan March ku jira
dagaalka ka socda dalka Ukraine. Taangigaas ayaan kusoo qaadan doonaa mar dhow. Marka wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda Russia oo ka hadlay arrinka iyo dagaal ka socda Ukraine ayaa reer galbeedka uga digay inay joojiyaan hubka iyo dhaqaalaha ay kusoo daabulayaan Ukraine. Wax badan ayaan uga dignay wuu leeyahay, dhagaha ayay ka furaysteen, waxna ma maqlayaan. Waxaan soo socotuu yidhi aan mar dhowto gacan saar weyn aan sameyno oo rarbaaxo ku dhufanno Ukrainiyiinta iyo dowladaha kaleba. waan u dignay digniinta ugu dambeysay maanta aan bixinuu yidhi dowladda Russia. Marka daawadayaal waxaa hadda ila daawataan oo nii soo bandhigayaa taangiga casriga ah ee magaciisa la yiraahdo T90M. taangigan waxaa sameeyey dowladda Russia. Dagaalka Ukraine ee halka sano iyo dhowrka bilood socda laguma arag. Sidaa daraaddeed taangigan dagaalka wuxuu soo galay bishan hadda lagu jiro March. Taangigan dowladihii reer galbeedka aad ayay uga fajaceen. Waa taangi khafiif ah oo ka casrisan taangiyadooda, shidaal yarna ku shaqeynaya, dabdamisna uu ku xiran yahay, awood difaacana leh. Waa taangi aad u dheereeya, sidaa daraaddeedna meel walba gelin kara. Marka taangigan siday sheegayaan khubarada Russianku waxay leeyihiin dagaalka hore uguma jirin halka sano iyo muddada dhowrka bilood socday. Intuu dagaalka hadda uu ku jiray muddo ku dhow 10 cishana wuxuu ka keenay guulo la taaban karo. Waa siday leeyihiin saraakiisha u hadlay dowladda Russia. Daawadayaal halkaa nagala socotaan waa barta YouTube-ka iyo TikTok-ga Calas 24 Post. Kulanti wacan oo wanaagsan. barnaamijka ku xiga ayaa noo balana. Asxaabtiina la wadaaga wixii war soo kordhana waan nila soo socodsiin doonaa haddii eebba idmo.